shirkan bilaha ee looga hadlayay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana shir gudoominayay shirka ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte iyadoona shirka ay ka qayb galeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka wasiirka maaliyadda ee dawladda Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim Bargeeti wakiilo ka socday qaramada midoobay beesha caalamka safiirka jaamacadda Carabta u fadhiya Soomaaliya kan Turkiga dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka inta uu socday shirka ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay ka hadleen horumarka ay Soomaaliya ka sameysay nidaamka la xisaabtanka maaliyadda ee dalka qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliyeed arrimaha doorashooyinka iyo dhanka abaaraha markii uu soo idlaaday shirka ayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte Qaalib oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay horumarka dawladda Soomaaliya ay ka sameysay nidaamka la xisaabtanka hay'adaha dhaqaalaha ee wadanka xagga kale waxa iyadana farxad weyn ah oo in maanta maxaa la yiraahdaa PFM-ka ama nidaamka xisaabaadka uu maamulka xisaabaadka uu ka hirgalay dalka runtii maantana uu soo jeediyay wasiirka maaliyadda qaabka iyo sida ay wada shaqayntu u jirto oo runtii ahayd yani wax lagu faano sanadii bar ka hor ama 2 sano ka hor aanay jirin maanta waxaan ka hadlayno oo ah in IMF-ta iyo World Bank-ka bangiga adduunka iyo maxaa la yiraahdaa hay'adda adduunka u qaabilsan maaliyadda intuba ay qirayaan horumarka dhinaca maaliyadda ee Soomaaliya ay sameysay waana wax lagu mahadnaqo laguna hambaliyeeyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha maaliyadaha ee dawlad goboleedyada dhamaantood oo shaqo fiican runtii qabtay waanan ugu mahadnaqaynaa sidoo kale hay'adihii la shaqeeyay hadday tahay bangiga adduunka hadday tahay maxaa la yiraahdaa hay'adda maaliyadda adduunka iyo hadday tahay maxaa la yiraahdaa bangiga horumarka Afrika isagoo intaba kala wada shaqeeyay marka taasna waa taa ugu dambeysay oo ah maxaa la yiraahdaa xagga qorshaha qaran iyadana maanta waxa ahayd in la soo bandhigo qorshihii qaran oo tafatiran oo runtii jooga yani maxaa la yiraahdaa halkii ugu dambeysay laakiin dib baa loo dhigay bisha dambe ayaan insha Allah tacaala filaynaa in la dhammaystiro Mudane Maxamed Cumar Carte Qaalib ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in doorashooyinka baarlamaanka ee Soomaaliya iminka meel wanaagsan ay marayso alxamdulillaah rabbil caalamiin doorashooyinka si fiican bay noogu u socdaan way bilaabmeen iminka gurigii sare waa kan dhismihiisii iminka almost u dhan yahay gurigii hoose golaha shacabkana sidoo kale ilaa imika waxaad moodaa 50% inuu dhismihiisa soo sameysmay marka waxaan filaynaa in bishan aakhirkeeda haddii aan leedmo ilaa bishan aakhirkeeda inuu soo wada dhammaadaan dhammaan xildhibaanadii oo dhan oo markaa golihii shacabka iyo aqalkii sare labaduba ay sidaa dhismahooda ugu noqdo mid kaamila oo markaa looga gudbo sidii loo dooran lahaa ama doorashadii madaxtooyada u dhici lahayd marka runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo weeyaan inaanay jirin waxba yaraatee intii ay jirtay inaanay wax dhib oo weyn oo imika la oran karayo dhibaata ka dhacday aanay jirin sidoo kale kulanka ayaa waxaa lagu bogaadiyay sida wanaagsan ee dawladda federaalka ay xil ballaaran isaga saartay xaqiijinta koontada haweenka ee xildhibaanada baarlamaanka dhinaca kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa la kulmay safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya waxayna ka wada hadleen sidii midowga Yurub ay u dardargelin lahayd mashaariicda ay ka wado Soomaaliya safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya u fadhisa Ambassador Lorenzo ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uga mahadcelisay kulanka waxayna sheegtay in midowga Yurub ay ka go'an tahay sidii mashaariicda Soomaaliya ay ka wadaan ay u dardargelin lahaayeen Cabdirashiid Nuur Ibraahim telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.